السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dalkeena 25 sanadka cusub wuxuu ortay asagoo qabiilada isleenayaan dagaal sokeeye ka socdo oo qabiil ilaahay ku taagay halka arkaysan qabiiladii Soomaaliyeed ayaa mar walba isbuuca marka nasaan isbuuc kalena way isdagaalayaan oo dhiiga bilaamacdana ay u daadanayaan waa 25 ayuu ortay Soomaaliya dhiig sokeeye oo qabiil iska daadanaysa oo waxa beerato wax isku jirin oo dad ayaa isugu xiga oo hal cala ay sheegtaa oo islaam ay maalin walba dhiigka darada iska daadanayaan halkaani rasaas nooc kala duwan ayaa la sugaysaa oo qabiil walba balaayo ayaa fangareynaysa oo balaayo ayaa hubka u gadaysa oo lacagtana taas uu shubaysa sida qabiilkaas ugu xoog badan dhibaato ka daran dalkeena haysato oo qabiilka ma jirto qof walba oo muuqaal dad ay og in dhibaato ugu daran oo qabiil dalkeena inay tahay qabiil xiidaha u siibtay dhalinteena baabi'isay hooyooyin badan asay u saartay aabooyin badan gabalanka dhigtay oo baabi'isay caruurtoodii hooyooyin badan dadkooda baabi'een dhibaatada dalkaas waa qabiilka ayaa kow ka ah oo sanad walba markii bishii koowaad ba la gaaro qabiilada mag iska dhigaan isbuuc ka baa arkaysa laba qabiil ayaa isku taagan 25kan wuxuu ka ortay dhiig sokeeye ayuu daadanaysa oo Soomaalida qabiil isku leenayo oo cid walba cid waxay ku haysaa beerta aysan jirin kaligood isleenayo dhiig iska daadanaya bilaamay dara oo qabiilka maanta qabiilka wuxuu ku haysaa ma yaqaan wuxuu ku dilaa ma yaqaan laakiin sagaashanka mar walba waxa arkaysa in qabiilkaasi bilaamay dhiig u daadanayo waxa arkaysa cawaaq xuma meed dhintay ayaa la jiidayaa misal in laga duto muuqaal ayaa lagu faanaya waa waxyaabaha khatarta waa dunuubta ugu daran la galo halis ah meed hadoo dhinto in la asturo ayaa wanaagsan halka qabiilada ee ku faanaya meedkii asagoo waliba dhintay kabaha laga baxayo dharkii laga siibayo la jiidayo meedkii asoo silacsan halkaas muuqaal laga soo duubayo arkaysa waxa aad xun badan waaye Soomaaliya Ilaahay subhanahu qaadir kaliya ayaa diji kara oo nabad ku dabaali kara sida hadda u jeedo wax rajo qabiil wax rajo nabad inaysan jirin qabiil ayaa mar walba shaqo laga dhigtay isku baabi'inaya nagal isaga dhigay qabiil walba hubka waa lagu fangareeyaa lacagta waa la siiyaa dad ayaa waxaasi ka damacsan oo shaydaamo Ilaahay in mar walba qabiiladaas qabiil kale ku duulo baabi'iyo dhiig bilaamay dara waxba aad tireen aad baa u xumaan dalkeena Soomaaliya qabiiladii kaligood isleenayaan ayuu waxba isku haysan ayuu maanta mid xoolo ah ka wadan bilaamay dhiig iska daadanaya oo dambiga tirada badan Ilaahay noo aruurinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala saakinta dartood yaa loo cadaabin dhibkaas maalmo dhacay dhiigaas maalmo daadanaya wala dhalinteena Soomaaliyeed qabiil ayaa lagu quflay qoriya ay 9 ka wataan maalmo qof ay dilayaan wuxuu ku dilmay yaqaan kan dilna wax uu dilmay yaqaan mar walbana qabiilkaas ayaa anaga xunooyaha number 1 oo Soomaaliya way kala tagtay habaryatay ma jirto isku laabjito qabiil ayaa wuxuu noqday Soomaaliya number 1 dhalinta halka ka muuqata u jeedin qabiil ayuu in dheeriyay oo habaryatay ma jirto wax kale ay fiirnayaan maalmo dhigta ay daadanayaan qabiil ayaa wada maanta dad lu ka go'o ama curyaamo barta ayaa looga tagayaa oo marka hore balaayo ayaa ku shaqaysanaysa muuqaalka sheegay aad u xumahay in Soomaaliya mar walba qabiil isku laayo oo sanadka cusub asliina barwaaqa ayuu ku furmi doonaa dhiig ayuu ku furmi Ilaahay subhanahu qaadir soo gaar ayadoo la ogyahay in bisha Shacbaan lagu jiro soonkii indhaha lagu sahayo ayaa mar walba dhiig isaan daadanaya sheegay muuqaalka aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkooda baabi'een dhibaatada dalkaas waa qabiilka ayaa kow ka ah oo sanad walba markii bishii koowaad ba la gaaro qabiilada mag iska dhigaan isbuuc ka baa arkaysa laba qabiil ayaa isku taagan 25kan wuxuu ka ortay dhiig sokeeye ayuu daadanaysa oo Soomaalida qabiil isku leenayo oo cid walba cid waxay ku haysaa beerta aysan jirin kaligood isleenayo dhiig iska daadanaya bilaamay dara oo qabiilka maanta qabiilka wuxuu ku haysaa ma yaqaan wuxuu ku dilaa ma yaqaan laakiin 9 mar walba waxa arkaysa in qabiilkaasi bilaamay dhiig u daadanayo waxa arkaysa cawaaq xuma meed dhintay ayaa la jiidayaa misal in laga duto muuqaal ayaa lagu faanaya waa waxyaabaha khatarta waa dunuubta ugu daran la galo halis ah meed hadoo dhinto in la asturo ayaa wanaagsan halka qabiilada ee ku faanaya meedkii asagoo waliba dhintay kabaha laga baxayo dharkii laga siibayo la jiidayo meedkii asoo silacsan halkaas muuqaal laga soo duubayo arkaysa waxa aad xun badan waaye Soomaaliya Ilaahay subhanahu qaadir kaliya ayaa diji kara oo nabad ku dabaali kara sida hadda u jeedo wax rajo qabiil wax rajo nabad inaysan jirin
qabiil ayaa mar walba shaqa laga dhigtay isku baabi'inaya nagal isaga dhigay qabiil walba hubka waa lagu fangareeya lacagta waa la siiyaa dad ayaa waxaasi ka damacsan oo shaydaamo ilaahay in mar walba qabiiladaas qabiil kale ku duulo baabi'iyo dhiig banaa meel daraa waxba aan tirin aad baa u xumayn dalkeena Soomaaliya qabiiladii kaligood islaanayaan ayuu waxba isku haysan ayuu maanta mid xoolo ah ka wadan banaa macna dhiig iska daadanayo oo dambiga tirada badan ilaahay noo aruurinayo ilaahay subhanahu wa ta'ala saakinta dartood yaa loo cadaabin dhibkaas maalmo dhacay dhiigaas maalmo daadanaya wala dhalinteena Soomaaliyeed qabiil ayaa lagu quflay qoriyo ay 9 ka wataan maalmo qof ay dilayaan wuxuu ku dilmay yaqaano kan dilna wax uu dilmay yaqaan